soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan la wadaagi doonaa sidii lacag $100 aan ugu bedelay $3,000 anigoo isticmaalaya cryptocurrency waxaan kula wadaagi doonaa tallaabo sidii ay hawshan ama arrintan aniga ay kuu suuro gashay adigana waxaan rajeynayaa in sidoo kale adigana ay kuu suuro geli doonto marka waa real life example waa tusaale cad oo mataqaanaa aan sameeyay marka waxaan ku tusinayaa tallaabo sidii ay markaa igu suuro gashay horta muddo intaanan hawsha gelin ayaa waxaan maqli jiray dhalinyaro aan asxaab nahayna maaragtay ila wadaageen oo waxay igu sheegeen sidoo kale aan YouTube-ka iyo meelaha baraha bulshada aan ka maqlay cryptocurrency dadka bacdi waxaan isku dayay inaan baaritaan ku sameeyo aan isweydiiyo waxaan horta ma ku gungaadhaa muxuu yahay bal soo ogow tallaabadii koobaad aan qaaday waxay ahayd cilmi baaris inaan qaaday tallaabadii cilmi baarista aan baaritaan ku sameeyey cryptocurrency maxay tahay sidee loo maalgashadaa faa'iido ku jirtaa maxay tahay sida looga faa'iidaa sida u shaqaysaa su'aalahaasina isweydiiyey kabacdina muddo kabacdina ogaaday waxay tahay cryptocurrency amaan ilaa aan bartay the basic maaragtay courseska ku saabsan cryptada tallaabada labaad qaada waxay ahayd xulashada waxaan sameeyey cryptocurrency waxaa ku jira boqolaal iyo kumanaan iyo malaayiin coins ayaa ku jira marka si aad u doorato kuwa aad doonayso ama aad leedahay mustaqbal fiican bay kuu yeelayaan ama dhaqaale fiican bay kuu yeelayaan waa inaad doorato marka anigu intayntaan sameeyey waxaan haddana la kaashay dadka YouTube-ka ku jira ama website-yada ku jira ama baraha bulshada ku jira ka sheekeynaya cryptocurrency intaas ka bacdi markaan labadaas ku daray aan isku geeyay labadaas baa waxay soo baxay ilaa 5 coins inay yihiin waqtigan la joogo kuugu habboon marka shantii waxaa ka mid ahaa bitcoin baa ahayd midii koowaad laba waxaa ku jiray ethereum saddex waxaa igu jirtay solana afar waxaa igu jiray polkadot ama loo yaqaano dot shan waxaa igu jirtay ada oo loo yaqaano cardano shantaas ayay ahaayeen shantii aan doortay ee markaan xulashada sameeyey aan maaragtay aan ugu talagalay in lacagta geliyo tallaabadii xigta waxay ahayd inaan qaybiyo lacagtii lacag $100 aan hayaa waxaan sameeyey inaan lacagtii qaybiyo saan u maalgashado shantii coin aan haystay ayaan u qaybiyey markaa $100 midkiiba $20 ayaan geliyey markaa $100 taasuu ku dhammaystiran yahay marka $20 aan bitcoin ku iibsado qiimaha bitcoin xilligaa wuxuu ahaa 34 maadaama ahayd 2021 ay ahayd xilligaa waliba bilowgii 2021 ayay ahayd sanadkii 2021 bilowgiisa ayaa bishii January February meelahaas ahayd waxaan markaas sameeyey waxaan ku iibsaday lacagta $20 bitcoin ku iibsaday xilliga qiimaha bitcoin wuxuu marayay 34 marka $20 aad ku iibsato lacag qiimayntaas waxay noqotay markaa 0.00588 ayay noqotay bitcoin inaan haysto maadaama ay 34,000 tahay halkii bitcoin ethereum sidoo kale $100 ayaan geliyey qiimaha xilligaa ay waxay maraysay $1,200 ayay maraysay ethereum xilligaa $100 markaan geliyeyna waxay noqotay 0.0167 inaan haysto oo ethereum waxa kale oo iyadoo ku xigtay solana $100 ayaan geliyey waxaan xilligaa maraysay $1.80 1.80 ayay maraysay xilligaa $100 ayaan geliyey lacagtan waxay noqotay 11011 ama 11.11 ayay noqotay $20 waxaan geliyey cardano idna xilligaa waxay maraysay 0.18 ayay maraysay ama 0.18 ayay maraysay waxaana noqotay lacagtaasi markaan ku iibsaday waxay noqotay 111.11 ama 111.11 cardano ayay noqotay intaas markaan sameeyey tallaabadii xigta waxay ahayd muddadii haynta ilaa 10 bilood ayaan hayay maadaama ay ahayd 2021 bishii January dhamaadkeeda ilaa February ay ahayd 10 bilood ayaan hayay muddadan hayay waxay 10 bilood
muddadan hay markaa waxay noqonaysaa 10 bilood. Talaabada xigta waxay ahayd isbeddelka qiimaha. Dhammaadkii sanadka 2021kii bishii November baa odhan karaa 11 ama 12 ayaa waxaa dhacay qiimihii isbeddelay. Bitcoin oo ku ogeyn 4 waxay noqotay 68,000 ayay noqotay. Ethereum oo ku naqaanay 1,200 waxay gaadhay $4,000. Solana oo ku ogeyn $1.08 waxay gaadhay $200. Polkadot ama dot oo loo yaqaano Polkadot waxay gaadhay $30. sidoo kale Cardano waxay gaadhay $1 iyo waliba badh ayay gaadhay maadaama ka hor ahayd 0.18 ay ahayd. intaas marka waa qiimihii ay gaadheen. hadda waxaan waafajinayaa lacagtii aan haystay qiimahan haystay iyo sicirka inta ku biirtay dhaqaalaha yacni inta ku biirtay Bitcoin mid walba waxa ku biiray. Bitcoin waxaan haystay 0.00588 ayaan haystay. marka waxaad igu dhufanaysaa inta ay noqoto hadda lacagtaan markaa helayaa waa $40 maadaama marka hore aan geliyay $20 kala ay dheeraadaya. Ethereum waxaan haystay 0.0167 ayaan haystay waxaan gaadhay $4,000. marka labadaas ku dhufto waxay noqonaysaa lacag 66.80 ah $10 baan geliyay. waxaan arkaysaa waxay dheeraaday ilaa lacag inta leg $40 ayaa markaa iyadna dheeraadiya maadaama $20 hore soo geliyay. Solana oo ah midka ugu qiimaha badan ee aad looga faa'iido waqtiga ahaa 11 ayay imareysay lacagta markaa Solanadan haysay 11 ayay imareysay halkii Solana waxay gaadhay $200 igu dhufo waa 2,222 ayay noqotay lacagtaas maadaama marka hore aan geliyay kaliya $10 oo 11 Solana haysay halkii Solana ay noqotay $200 waad igu dhufanaysaa marka waa 2,222 taradii yareed ka qaldimin qof walba waanu haysto. intaas markaan haysto Polkadot baasna sidoo kale waxaan haystay 2.22 marka igu dhufo $100 buu gaadhay igu dhufo marka 66.60 sidoo kale Cardano 11 ama 111 ayaan haystay maadaama gaadhay $1 iyo badh igu dhufo marka waa 166.67 weeye. intaas marka waa lacagtan haystay. hadaba qiimaha isku soo geeya lacagtan haystay sanadkii 2022 dhamaadkeedii waxay noqonaysaa $4 oo meel 66 meel oo Ethereum ah 2,222 Solana ah.